bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa maantay inaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gobol iyo degmo iyo dibad inaan halkaan kilibkaan arrin yar ku duubo oo dhacday oo ay sameeyeen mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada puntland oo muddadii 5 sano ahayd qaarna ahaa la taliyaasha ina farmaajo ahaa qaarna si kale ula shaqaynayay ama xildhibaanna ha ahaadeen ama wasiirra ha ahaadeen oo ku garabsiinayay dhibaatada ina farmaajo dalkan ku waday oo ah dibindaabyo dil qorshaysan hagardaamo dalkiiyo madaxa isu gashay maamul goboleedyadoo meelo badan dhiig uu ku daadshay meelaha qaarkoodna markuu si kala waayay qaarna cunaqabateeyey oo ah jubbaland wuxuu ku sameeyey puntlandna 3 sano iyo bar uu kula dagaalamayay si u kala furfuri lahaa oo dhaqaale ugu bixinayo oo isaga horkeeni lahaa oo xabadu ka dhici lahayd haddaba intaas nimankaa siyaasiyiinta ah u kala qaybsan qaar la taliyaashiisa ah iyo qaar xildhibaano iyo wasiirra ahaa iyo qaar siyaasiyiin kaloo ayana ku milmay inta uu xamar joogo ku milmay baa waxay sameeyeen markii ay kursigii waayeen xildhibaanada ahaa ay waayeen bishan abril 1 qolo shir ku qabatay oo ayana iyo kuwaasuna eedeyn badan ay aad u soo jeediyeen iyo cambaareyn puntland laftigeeda iyo madaxda puntland u soo jeediyeen qaybta labaadna bishan hadda aan ku jirno isla abril 7 2022 shir xamar ku qabteen ayagoo markaas wata magac puntland oo la baxay shirka sabanta bixinta puntland la baxay horta su'aasha isweydiinta mudan yay sabanta bixinahayaan yayse u sabanta bixinahayaan yaase sabanta bixinahaya maxaase laga sabanta bixinahayaa horta su'aasha taagan waa midaas dadka siyaasiyiinta magaca siyaasiyiinta ku socda oo deegaanada puntland magacooda wata oo xamar iyo nairobi shirka ku qabtay bal su'aalaha isweydiinta mudan 5 sano oo dhibaatada dalka ka socotay la ogyahay oo waxa xamar shacabka xamar degan dhibaatada lagu sameeyay oo filla Soomaaliya ku samaysay cid ay ka qarsoon tahay jirin haddaan tusaale u soo qaato muwaadin Soomaaliyeed baa cadow loo dhiibay shacabka Soomaaliyeed oo ay mushaarkooda ay qaataan laga soo urunayay hooyada yaanyada gata iyo midda dariiqa taagan iyo mid maaragtay ilmaheeda meel caanan ku gadanaysa iyo mid qudaar ku gadanaysa lacagtii laga qaaday bay mushaar ku qaadan jireen dhibaatada dadkaas la badayna hal maalin kamayna hadlin wixii madaxweynayaasha dalka soo maray waxa lagu sameeyay waa ogtihiin dhiibistii qalbi dhagax waad ogtihiin duulaankii guriga cabdiraxmaan abshuur waa ogtihiin madax Soomaaliyeed oo sharaf lahaa sida ama hoteelada loogu weeraray iyagoo banaanbax nabadeed wada ama diyaarad lagu soo ridi rabay ama safar loo diiday ayana waad ogtihiin wax la soo koobi kara lama arko waad ogtihiin puntland in dhan kasta laga curyaamiyey oo dhan kasta laga cunaqabateeyey oo dhibaato badan lagu sameeyey oo ay ka soo jeedaan puntland leeyahay waa ka danqanaynaa oo magaca sabanta bixinta ay la baxeen wixii looga oo dhibaato ah puntland lagu sameeyey ama mid dhaqaale laga xanibay ha ahaato ama mashaariic ha ahaato ama waxbarashadii ha ahaato ama ayadiyo inta la dhex galay xabad la isugu dhiibay oo xabad laga qarxiyay ha ahaato tii Jubbaland shacab Soomaaliyeed la cunaqabateeyey oo madaxda dalka ugu sarreeyay cunaqabataysay dadka inta aan hal maalin ka danqan dhibaatada aan soo sheegay hal maalin aan ka danqan markay kursi doonteen oo ay soo waayeen ilaa shalay ku fadhiyeen inay shirar inta kala qabtaan afkooda qaylo ku shubtaan oo yiraahdaan puntland dhibaata ka dhacday hoog baa ka dhacay halaag baa ka dhacay nin masiibo qaba xukuumo soo socda dalka federaalka u soo socda oo qaylada inta la eg baroor diiqda inta la eg waxa ka keenaya danqasho ay puntland ka danqadeen maahan hadday ka danqanayeen shalay ka danqan lahaayeen shalay Soomaaliya ka danqan lahaayeen waxa puntland lagu sameeyay ka danqan lahaayeen waxa Jubbaland lagu sameeyay ka danqan lahaayeen waxa shacab weynaha xamar joogo canshuurtooda la ururiyay ay ka qaadan jireen bay ka danqan lahaayeen tii cabdiraxmaan cabdishuur bay ka danqan lahaayeen dhiibistii qalbi dhagax bay ka danqan lahaayeen hagardaamada iyo burburka iyo dhibaatada dalka iyo meesha dalka Soomaaliya loo wada ka danqan lahaayeen waxa marka nasiib darro ah kursi haddaan soo waayay eeda aan jirin baan sameeynayaa marka dadka waxaan u meenayaa siyaasadii Soomaaliya inay maanta uga eg tahay oo ay qof walba maanta og yahay
oo nin kursi soo waayo suu doona u hadlo. waxaan rabaa dadka inaan dareensiiyo war anigaan idinla hadlahaya 23 sanaan puntland difaacahay oo geedi gaaban u kora soomaaliyana sidoo kale 5 sano u dambeysay magaalada muqdisho dadka degan oo dhibaatada lagu sameynayay oo cid si kasta ha loo dhibaateeyay ninkii ka hadlayay baan oo ka danqaday oo ka hadlayay oo lahaa war shacabkan Soomaaliyeed dhibaatada ha laga daayo horta anigu ahaa anigoo intaas u taagnaa oo qadiyada Soomaaliya u taagnaa oo tii Puntland u taagnaa baan kursigii haddana waayay sharaftayda marka waxay ka weynaatay inaan cambaareeyo cid oo anoo xanaaqsan kursi baa la ii diiday iska hadla waxay ila noqotay inaan siyaasadii Soomaaliya faylgareeyay sidaa daraadeed anay ahayd maanta inaan hadlo oo aan eedo badan soo jeediyo maxaa yeelay eedan Puntland u galay ama Soomaali weyn eedan u galay ama difaaci aan muxuu ahaa dhibaatadii ina farmaajo Soomaaliya ku sameeyay aan banaanka soo dhigay cid samaysa ma jirto idinkuna inta waa fiirsanayseen mushaari baad ahayd oo dalkaad ku fiirsanayseen marka ninka siyaasiga waxa laga rabaa inuu dhan kasta ka bisil yahay waxaanu siyaasadaanu maalinba gelin bay joogtaa maanta haddaad weyday berri baad helaysaa marka waxaa fiican inaad siyaasadii israacin oo aad oran kaligeeba siyaasiyay kursi la igu diiday cid qof kastana ha ogaado madaxweyne kastoo maanta tartamayo horta xaq buu u leeyahay inuu tartamo oo waajib buu u leeyahay kii madaxweyne noqon haya ilaahay baa ixtiraamada ka qoray marka cid aad aflagaadaysaan iyo madaxweyne aad eed u salahayn u soo jeedisaan calafkiisa kursiga haday tahay kamana celin kartaan kamana hor istaagi kartaan laakiin waxaan arkaa dadkaas maantay hadlay oo shala hadlay inay siyaasadii Soomaaliya faylgarooyeen oo ay istuseen inayna waxba ahayn inayna qaymo lahayn inay kaliya kursiga isaga fadhiyeen war hadee kursiga hadaad shala ku fadhid in adeerkaaba ku bedelay ehelkaaba ku bedelay reerkaagi midaha ku bedelay yuhuud lama siin faransiisna lama siin qabiil kale lama siin ku calool fayoobaada oo joojiya qayladan iyo samanta bixintaada ay sheegaysaan ereyga samanta bixinta macnaheeduna waxa weeye ina farmaajo samanta bixinayaan oo u ololeynayaan oo miiska u saaran oo ay difaacayaan oo ay ku difaacayaan dulmiga iyo dhibaatada uu baday Soomaaliya 5 sano qof walba taa marka ha ogaado dadka xamar joogaana arinta ha ogaadeen nimanka reer Puntland oo shirarka Nairobi iyo xamar ku kala qabanaya in ay nimankaas yihiin loobinkii farmaajo u sameynayaan oo ay asaga difaacayaan oo habeen iyo maalin u yeero oo shirarka la kala galo oo go'aamada la kala qaato marka shacabka Soomaalida waxaan leeyahay nimanka reer Puntland waa nimankii raali ka noqday boosaas in xabad lagu rida raali ka noqday waa nimankii raali ka noqday waxbarashadii Puntland caruurtooda in laga joojiyo waa nimankii raali ka noqday mashaariicdii iyo maaragtay dhaqaalihii caalamka baxsho oo ay xaq Puntland ka hor istaagay raali bay ka ahayeen kama hadlin dhibaatada xamar ka dhacdo shacabka xamar lagu sameeyay waa nimanka aan ka hadlin oo aan hal maalin ka danqan cunaqabatayntii Jubbaland waa nimankan hal maalin ka danqan tan la yiraahdo muxuu ahaa duulaankii Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo wixii koonfurta xamar dadka lagu sameeyay waa nimankii aan ka danqan marka maanta waxa dareemaysaa ninkii intaas dhibaato hayay oo ay ag fadhiyeen oo la taliyaasha ay u ahaayeen xildhibaanada u ahaayeen oo wasiirka u ahaayeen wasiirada u ahaayeen oo hal maalin inta aan ka danqan markay maanta kursiga waayeen intay fila Soomaaliya salka la galeen inay eedo iyo dhibaato soo jeediyaan macnaheedu waxa weeye ereyga halka idinka muuqda oo samanta bixintu waxa weeye samanta bixinta ina farmaajo inay u heeliyaan oo u istaagaan maadaama Puntland iyo Jubbaland iyo musharaxiinta koonfurta Soomaaliya ay ka dhiidhiyeen dhibaatada shacabka Soomaaliya lagu hayo iyo dowladnimada lagu ciyaarayo qof walba taa waa inuu ogaadaa ilgaarna waa in lagu hayaa warbixino kale oo aad u badanna waa soo wadaa oo ku saabsan nimanka maanta hadlaya aad iyo aad baa mahadsantihiin